الحمد لله الذي أنار الكونين بميلاد أشرف الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muuminiinta meel kasta caalamka ay ku joogaan. waxaan jeclaystay maanta inaan martigeliyo oon dhammaantiin idinku martiqaado invitation aad u wanaagsan ama martiqaad aad u qiimo badan oo ku saabsan dhalashadii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo aanu ku qabanayno sanadkan haddii ilahayd wadanka Canada magaalada Toronto. aniga oo ka mid ah qabanqaabayaasha ayaa si official qof walba in ka mid ah ugu martiqaadaya insha Allah taala. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad ajiibtaan haddii ay soo gaarto invitationkaas aad u qiimaha badan. runtii waxa aad ka helaysaan waa wax ka khayr badan adduunka iyo waxa dhexdiisa ah oo ku saabsan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam waa midka rabbi subxaanahu wa tacaala uu noogu tilmaamay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu tilmaamay inuu nafteenna uu nooga awleysan yahay. idan dhegeysiga nebiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa, barashadiisa, jacaylkiisa, ku sallintiisa, weynayntiisa iyo cisayntiisu waa imaamka aas-aaskiisa weeyaan. sidaas daraaddeed sida da'biga culammada ahlusunna waljamaaca uu yahay mar kasta ay u sameeyaan munaasabaadka sidaan oo kale ay weynaynayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayagoo fartoomaya rabbi subxaanahu wa tacaala qowlkiisa uu leeyahay litu'minuu billaahi wa rasuulih watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuhu bukratan wa asiila. ayagoo taa fartoomaya ay sanad walba qabtaan. sanadkan waxaanu ku qabanaynaa magaalada Toronto. adreeska insha allahu tacaala iyo waqtiga iyo intaba waa inii soo gudbinayaa iyo taleefonka insha allahu tacaala. laakiin intaan inii soo gudbinin ka hor aan wax yar inii hormariyo munaasabaadka ka bixi doona insha allahu tacaala iyo culammada ku martiqaada intaba sanadkan aan rajeynayna inay maaragtaa wax weyn aad ka soo faa'iidid insha allahu tacaala haddaad nasiib u yeelatid inaad ka soo qayb gashay munaasabadaas. waxaa laga sheekayn doonaa oo ay ku saabsan tahay dhammaanba munaasabadan nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka soo bilaabanaysaa before uusan nebigu dhalanay calayhi salaatu wasalaam adduunku siduu ahaa iyo isbedelkii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii wixii iraasaad oo dhacay. iraasaadku waa wixii ka horreeyey inta uusan nebi noqonin nebiga calayhi salaatu wasalaam ama waxyigii qur-aanka uusan ku soo deginin. waxyaalihii dhacay markuu caloosha hooyadiis ku jiray, markii uu yaraa ilmaha yariiska ah wixii dhacay ama qalitaankii nebigu uu soo mar ha noqoto calayhi salaatu wasalaam ama nuugmadii lasoo nuujiyey ha noqoto iyo waxyaalihii cajaa'ibta ahaa ay ka sheekeeyeen kutubu siyarka ka qoreen nebiga calayhi salaatu wasalaam xalimatu sacdiya iyo markii nuujinaysay dareenka ay dareentay iyo barakadii ay ka heshay. markuu soo koray iyo siduu ka ahaa qoomka dhexdiisa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka ahaa oo halkudhigii ay u yaqaaneen uu nebiga calayhi salaatu wasalaam maxamed alamiin oo ay dhammaan uga wada markhaati kaceen inuu ahaa runlow uu ahaa mid ay kulligood ay ku wada kalsoon yihiin inuu ahaa shaqooyinka uu communitiga usoo qabtay nebiga calayhi salaatu wasalaam inta aan waxyi ku soo deginin. sidoo kale guurka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo siduu ehelkiisa oola macaamili jiray. macaamilada faamiliga waa waxyaalaha casharka ugu wanaagsan ama exaamarka ugu wanaagsan ee laga qaadanayo nebigeenna wey calayhi salaatu wasalaam maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. rasuulka ilaahay subxaanahu wa tacaala inay inoogu sugan tahay kudayasho. kudayashaduna ay gelayso tilaabo kasta oo noloshaada ka mid ah ay ku soo gelayso. sidaas daraaddeed marka mucaamiladii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la macaamilahaya reerihiisa iyo faamilkiisa siduu ku dhex ahaa waxyaalaha casharadana aan ku qaadan doono insha allahu tacaala oo mawliidka lagu soo qaadanaya ama xafladaas ay ku saabsan tahay ayuu ka mid noqonaya nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid noqonaya qur-aanka markuu kusoo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii uu dareemay dadkii u horreeyey ee ka qayb qaatay caawinta nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo taabiyeelidda diinta iyo isku dayaalka ay mar walba isku dayahayeen qolada ka soo horjeeday ee aan ayagu rumaysnayn diinta ilaahay sida ay macnaha ay ula macaamilayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam. waa qisooyin aad u wanaagsan dhammaantood qofkana iimaankiisa xoojinaysa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfaco. waa muhiim qofku inuu barto waana imaamka barkiis ama imaamka aas-aaskiisaba in laga helo maxaba uu nabiga jecel yahay calayhi salaatu wasalaam. maxaba ma timaado ilaa macrifo marka hore la helo. idan marka brogaraamkeenu bilow ilaa dhammaad
wuxuu ku saabsanaanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam barashadiisa. barashada ayaa dhalinaysa maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam. raacitaanka wuxuu ka dhalanayaa jacaylka nabiga iyo aqoontiisa. qof aadan aqoonin dabcan maba raaci kartidba. markaad raacdid rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aad baratid oo aad waddadiisa raacdid waxaad ku sifoobaysaa qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah. haddii aad rabtaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu ina jeclo si ilaahay inii jeclaado inaad nabiga soo raacdaan calayhi salaatu wasalaam oo aad nabiga aad waddadiisa raacdaan. sidaas daraaddeed marka brogaraamkeena wuxuu ku saabsanaanayaa gebi ahaanba nabiga calayhi salaatu wasalaam. munaasabadan wax kalama ku saabsana. awalan irhaasaadkii baa laga sheekeynaya oo waxa ugu horeeyey ah mucjizaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laga sheekeynayaa. maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sida saxaabada u jeclaayaan ayaa laga sheekeynayaa. shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo siduu ummadoo dhan ugu shafaaci doono oo shafaacatlcudma uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ayaa laga sheekeynayaa. fisikaalkii nabiga calayhi salaatu wasalam jir ahaan siduu u eka ayaa laga sheekeynayaa. raxmadii iyo naxariistii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laga sheekeynayaa. casharadaasoo dhan qof kastoo mu'mina waa casharada ay u baahan tahay naftiisa inuu ku tarabiyeeyo, awlaadiisa baro, ciyaalkiisa baro, dadkiisa iyo ehelkiisana oo ay u noqoto tiir dhexaad in ay u fahmaan nabiga calayhi salaatu wasalaam rool maalka ugu qiimaha badan ee ilaahay giftiga u siiya raxmatulmuhdaa inuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. idan walaalayaal dhammaantiin idinka aada u mahadsan. waxaan ila jeclaystay martiqaadkaas aadka u sharafta badan inaad nagala soo qayb gashaan. wuxuu dhaci doonaa insha allahu tacaala bisha 12aad kowdeeda oo ku aadan sabtida hadda soo socota ayuu dhici doonaa insha allahu tacaala. wuxuu ka dhici doonaa xaafadda etoobica ayuu ka dhici doonaa xaafadda digson oo dad badan ay garanayaan khaasatan reer Toronto aad ayay u garanayaan digson ay u garanayaan. tiriituwaniga hoostiisa waxaa ku yaala meel aada u weyn oo lagu tukado salaadaha jumcada, lagu tukado salaadaha ciidaha, lagu tukado communitiga aada u isticmaalaan ay wada garanayaan ayaa ku yaala. halkaas ayaa insha allahu tacaala waxaan ku qabanaynaa mawliidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo laga sheekeynaya gebi ahaanba nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam. culammada ka soo qaybgalaysa ilaa 18 ayay gaarahayaan. runtii magacyadooda kama wada gaari karaya, way tiro badan yihiin. haddaan hal iyo laba ka soo qaato culammada u waaweyn waxaa ka mid a sheekh idriis ayaa ka mida oo dhammaan la garanahayo ayaa ka mida insha allahu tacaala. culammadaas ayaa nagu marti qaadan, dhammaanna naga shaafin doonta, naguna maarata bari doonta, nagu beeri doonta jacayl ziyaada a nabiga calayhi salaatu wasalaam inaanu u qaadno markii aanu dhegaysano mawaacidada qiimaha badan ee ka soo bixi doonta. waxaan ka codsanayaa qof walba oo dhegaysta masaajka uu soo gaaro inuu lafihiisa yimaado, awlaadiisa iyo xaaskiisa iyo reerihiisa soo qaado, uu kaga faa'iideeyo fursaddaas aadka u qaaliga ah ee ilaahay maaragta noo suurto gelin doono insha allahu tacaala inay noo dhacdo bisha 12aad kowdeeda maalin sabtiya ay tahay, meeshuna ay tahay 320 digson road ay tahay. xaafadda digson si fiican wada garanaysaa. baarkinka insha allahu tacaala dhib inaan kala kulmi doono ayaan rajeynaya insha allahu tacaala wuu sahlanaan doonaa. dhammaanba dadweynaheena meesha ku nool Toronto area si wanaagsan oo kalgacayl iyo maxabo iyo walaaltinimo ay ku jirto ayaan dhammaanteen kugu martigelinaa insha allahu tacaala ka soo qayb gashaan. sidoo kale waxaa jiri doona telefono la qaybinayo oo maaragta haddii aad u baahatid inaad baarkin weydiisid ama su-aal aad qabtid aad weydiiso wici kartid telefonkayoo kale insha allahu tacala waa inii soo gudbinaya shaashadda un bayn kugu soo qormayaa haddii rabbi subxaanahu watacaala u idmo. dhammaantiin walaalayaal waa mahadsantiin. wasalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ka soo qaybgal wanaagsan dhalashada nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam. raalli ahaada waxaan ilaaway su-aalo iyo jawaabo ayaa jiri doona. qofkii su-aal ka qaba ama mashruuciyadda ha noqoto mawliidka banaanaatiisa ama diiniyanba su-aal qofkii uu qaba insha allahu tacaala culummada sida way ka caafin doonaan insha allahu tacaala. ku soo dhawaada walaalayaal dhammaantiin. wasalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.